galmudug ma horeysa dagaal iyo sidoo kale inay gacmaha iskula tagaan dhinacyada hadda ku loolamaya siyaasadda iyo sidoo kale arrimaha la xiriira doorashooyinka. Wadahadaladii maalmihii lasoo dhaafay si weyn ay u falanqeeyeen Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo sidoo kale Mahad Maxamed Salaad oo garwadeen ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay noqdeen kuwo noqon waayay sidii la filayay. Mahad Maxamed Salaad ayaana waji gabax kala kulmay doonistiisa ku aadanayd Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor inuu ku qanciyo wax walba oo Xasan Sheekh Maxamuud oo doonayay oo ku aadanaa doorashooyinka Galmudug, maadaama ay adag tahay in Galmudug xilligan lagu wajaho dagaal ama sidoo kale sidii Koonfur Galbeed oo kale Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor inuu noqdo mid markaasi xilka si awood looga tiriyo. Laakiin arrimihii la xeerinayay oo dhan waxay noqdeen kuwo markaasi dib u degay marka laga ambaqaado marxaladaha iyo sida hadda xaalku yahay. Mahad Maxamed Salaad kulamadii maalmihii lasoo dhaafay uu qaatay iyo sidoo kale qorshayaashii dhammaantood waxay ku soo go'doomeen in dhinacyadu ay si weyn isugu fahmi waayaan waxyaabihii la isku hayay oo doorashada iyo sidoo kale Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor inuu macsalaameeyo Galmudug ay qayb ka tahay. Arrimaha inay adkaadeen waxaa laga dareemayaa safarka degdega ah ee Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku tagayo Dhuusamareeb, kaasi oo qayb ka noqonaya dadaalada dheeraadka ah ee Ra'iisul Wasaaruhu uu ku doonayo in markaasi Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo lagu tilmaamo saaxiib si gaar ah ugu dhow inuu ku qanciyo sidii loo soo gabagabayn lahaa xaaladda taagan. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxaa la aaminsan yahay in dhowr markaasi kala doorasho oo kala duwan la siiyey dhammaantood ay noqon waayeen kuwa uu ku qanco. Waxyaabaha ugu waaweyn ee la isku hayana waa guddiga doorashada iyo sidoo kale arrimaha la xiriira sidii loo wajihi lahaa doorashooyinka qof iyo codka ah ee dowladdu hadda ay doonayso inay ka qabato deegaanada dowlad goboleedka Galmudug Soomaaliya. Laakiin dhinacyadu inay si weyn isaga hor yimaadeen iyo sidoo kale in hub si weyn la isugu urursanayo deegaanada qaar ka mid ah Galmudug Soomaaliya waxa ay muujinayaan Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor inuu helayo hadda taageero ballaaran taasi oo si weyn u muujinaysa marxaladaha iyo sidoo kale xaaladaha taagan. Mahad Maxamed Salaad, Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre dhammaantood hadda waxay isku kaashanayaan xaaladaha jira ee sidoo kale markaasi qorshayaasha iyo sidoo dadaalada lagu doonayo in dhinacyadu ay sii wadaan marxaladahooda iyo sidoo kale waxyaabaha badan ee lagu daadajinayo xaaladaha guud ee taagan. Si walba ha ahaatee Galmudug haatan waxay u muuqataa in dhinacyadu ay si weyn isugu diidan yihiin marxaladaha iyo sidoo kale waxyaabaha isi soo xirxiraya. Laakiin wararku iyo sidoo kale falanqeeyaasha siyaasaddu waxay leeyihiin Galmudug ma hori doonto in dagaal ama sidoo kale la isku awood sheegto, waana midda kaliya ee laga cabsi qabo haddii dagaal Galmudug uu ka furmo noqon karta mid Xasan Sheekh Maxamuud uu ku jabo, maadaama Galmudug ay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda siyaasadda Soomaaliya si weyn u jaangoynaya. dhanka kale marka laga ambaqaado Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre safarka uu ku tagayo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, wararka qaarkood waxa ay muujinayaan in arrimahaasi ay yihiin kuwo markaasi si weyn ugu qotoma xaaladaha iyo sidoo kale in la soo gabagabeeyo waxyaabaha guud ee jira. Laakiin Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre, Mahad Maxamed Salaad, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Liibaan Axmed Xasan dhammaantood waxay doonayaan in Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor meesha laga saaro, sidoo kalena wado walba uu ku bixi karo uu ku baxo. Kala doorashada qaadasho lacag 6 milyan ah, safiir inuu ka noqdo dowladda Turkiga, wasiir ku-xigeen ka mid ah dowladda Soomaaliya, wasiir dowladda ka mid ah, dhammaantood waxay yihiin doorashooyinka la siiyay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Laakiin Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waa diiday wax ka badan inuu tartanka qayb ka noqdo, waxaana uu doonayaa in dowlad goboleedkiisu uu noqdo mid ka mid ah kuwa uu sida weyn ugu tartamo. Marxaladaha haatan taagan ayaana muujinaya xaaladaasi. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa lagu tilmaamayay nin si weyn wax kaga qabtay xaaladaha iyo sidoo kale marxaladihii ka taagnaa deegaanada dowlad goboleedka Galmudug Soomaaliya. Waxa uu sameeyay mashaariic kala duwan iyo sidoo kale waxyaabo badan oo lagu horumariyay deegaanka. Laakiin haddana sidaasi ay tahay dhinacyadu haatan waxay muuqataa in si weyn la isugu haysto xaaladda guud ee haatan taagan. Laakiin Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor wax walba waxa uu ku soo gabagabeeyay inuu doonayo in doorashada uu qayb ka noqdo uuna tartamo. Wararka qaarkood ayaa waxay sheegayaan in Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu si weyn hadda ugu sii dhawaanayo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, gaar ahaan xisbigiisa Tawfiiq, taasi oo qayb ka ah haddii ay noqoto Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor inuu xisbigaasi ka tartamo mid si weyn ugu jabi karo wadajirka iyo cadaaladda GSB iyo Mahad Maxamed Salaad. Marka laga ambaqaado in dadka inta ugu badan ee ku nool gobolada Galgaduud iyo sidoo kale Mudug intaba ay aad u taageersan yihiin Sheekha iyo sidoo kale xirta Ahlus Sunna wal Jamaaca, waxaana mid ka mid ah ayaa la leeyahay waxyaabaha ugu waaweyn ee dowladda dhaxalsiin kara inay ku jabto Galmudug Soomaaliya. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaana maalmaha soo socda shaacin doona kamid ahaanshihiisa xisbiga Tawfiiq iyo sidoo kale Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Xaaladda ka taagan markaasi Galmudug hadda waxay u muuqataa marxalad aan markaasi la holinaynin in dhinacyadu ay dagaalamaan. magaalooyin ay ka mid yihiin Cadaado, Baxdo, Godin Laba iyo sidoo kale Gidhays dhammaantood waxaa lagu arkayay beelo kala duwan oo ka tirsan reer Xaaji Salebaan, kuwaasi oo si weyn u taageeraya Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, soona bandhigaya hub kala duwan diyaarna ay u yihiin inay difaacaan.
laakiin magaalada Dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka Galmudug dagaal ka bilowda furo ayuu u noqon doonaa in dowladdu ay ku guuldareysatay qabashada doorashooyinka qof iyo codka kuwaasi oo laga dhadhansan karay in mucaaradku ay ogol yihiin laakiin Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa si weyn ugu xiran ayaa leeyahay qaar ka mid ah mucaaradka oo qayb ka yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed marka laga ambaqaado Liibaan Axmed Xasan doonistiisa ku aadan Galmudug Soomaaliya waxay noqotay inuu dhammaan u soo maro Xasan Sheekh Maxamuud laakiin uu ku dhici waayay in Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor tartan furan uu la galo laakiin waxa uu doonayaa waa doorasho xiran oo sidii aadan Maxamed Nuur Madoobe markaasi qof malxiisa loo geeyo meesha sidoo kalena uu ku tartamo taasina waxay noqon doontaa mid ka mid ah calaamaha saaran Galmudug Soomaaliya la isku haysto